iminka oo ay goorsheegtadu ku beegan tahay 9 saac oo habeenimo waxaynu ku sugannahay ziyaaradii labaad ee sanadkan allaha u naxariistay caalimkii Soomaaliyeed Sheekh Daawud Culusow Xubeey dhafarka ayaa waxa ku sugan culummo iyo xir aad u fara badan iyadoo xilligan oo saq dhexe ah ku macaansanaya tawxiidkii Allah subhanahu wa ta'ala ahbaabta aynu jecelnahay waxa dareemi kara macaanida tawxiidka ay ku dhawaaqayaan qofka daakirka waxaana liibaanay qofka ku sugan caawa xalqadan barakaysan kamida culimo diinki ka soo qayb galay dhafarka oo aynu la hadalnay ayaa ka sheekeeyay taariikhda sheekha sheekhayna Sheekh Daawud oo caawa dhafarkiisii la taagan yahay waxa uu kamid ahaa culimada waaweyn ee akaabirta ah ee awliyada Ilaahay ah waxa uu ahaa xer ka soo baxay madrasadii nuurka iyo khayrka badneed ee sayidkeena Sheekh Cali Maye ayuu ahaa markii uu sheekhu wax bartay sheekhuna wuxuu ku shubi rabay oo khayraada uu ku shubay waxa uu u diray wadankii iyo deegaankii uu u dhashay sheekhu halkaas ayuu ka galay tarbiyada ummadda iyo ugu yeeridda diinta Ilaahay nooc walba ay tahay dadkii ku hanuuniyay waajibaadka Ilaahay ku leeyahay وحلال وحي الدنيا إيا آخرة ذا صوب كريا جهد بدن أيا شيخ كبحيي فافنت الدين إسلامك إيا إنو ضدك إلهي سبحانه وتعالى أو كحره تاسنا وكوغوليستي
khayr badan oo aan horay loo haysan ayaa ilaahay reer ka siiyey dadkii nawaaxigii loo diray joogana waa aflaxeen waa ka liibaaneen sheekha imaantinkiisa kii aan duka jirinin waa dukaday kii aan soomi jirin waa soomay dadku waxa uu joogay zamanulfatra camal oo dad culimo ah uma badnayn iyo mashaa'ikh sheekhu haddii uu yimid ayaa hawshaas ilaahay u fududeeyey marka sheekhaynu haddii ay tahay waxqabad diimeedna sidaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu guuleeyey haddii ay tahay waxqabad diimeed iyo mid adduunyo miduu reebtay ma jirto dhinac walbaba ayuu ka kabay dadkii uu u tegey ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ku garab galay caawa marka waxaan taagannahay gabagabadii dhafarkii sheekh daa'uud culusow waxaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inta ka soo qayb gashay in dembigeeda ilaahay dhaafo howlahoodan ilaahay fududeeyo khayraad iyo barakaad iyo nafaxaad fara badanna sheekha ziyaaradiisa ilaahay uu ka siiyo uu nagu wada liibaano waddanka ilaahay uu noogu dejiyo wax allaala wixii muslimiinta dhibaato ku ah alla ka kor yeelo sida nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu cadeynaya khalqi ilaahay waxa uu anfac badan waxa ugu fiican oo ilaahay ugu jecel yahay qofka dadka uu waxtar badan sheekh daawud culusow nafsadiisa kaliya ma anficin ilmihiisa kaliya ma anficin qaraabadiisa kaliyana ma anficin wuxuu anfacay muslimiinta ayuu anfacay ziyaartan sheekh daawud culusow annagu markaan soo gaarnay intii hore taariikhdan ahayn maahan intaan goobjoog ka nahna oo annagu goob aan joognay ziyaar kastaba ziyaarta ka dambaysa waa kasii xoogaabaysaa waxaana waaye sheekhayna sheekh daawuda waxay daliil u tahay juhdiga uu sameeyay ilaahay dartii inuu ula jeedaa cid kasta ee dadaal samaysa oo waqtigeeda ku bixisay wax muuqaalka hore oo wax fiican u egyahay laakiin ikhlaas aan ahayn saan naqamayso waxaan lilaahi loola jeedin si kasta uu qurux badan yihiin saan u natiijay maayo aakhirana wax laga helmaayo adduunyada sharaf laga helmaayo sheekha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku arsuqay juhdi iyo ikhlaas ayuu ku arsuqay waxaana u daliil ah awlaadiisa waxaa waaye saalixiin ayay noqdaan qof hadda awlaadiisa aan aqaano oo muxuu ahay aad da'dooda u weynaate ee aan muslimka u gargaarin ama ximid dama aan ka soo kicin ama aan ku fikirna muslimka soo gargaari lahay waa yar tahay caawa waxaan joognaa ziyaartii sheekhayna sheekh daa'uud culusow cubeyd dhafarkiisii ziyaarta maalmahan oo dhan ayay soo socotay khayraad fara badan ayaa la soo akhriyey oo ka mid yahay qur'aanka kariimka ah salliga nabigeena calayhi salaatu wasalaam caawana waxaan joognaa dhafarkii jamaacooyin kala duwan ayaa ziyaarta ka soo qayb galay waxaa bannaanbaxii maanta galabta ka soo qayb galay ziyaarta sheekhaynii caalimka ahaa sheekh cuthmaan sheekh cumar sheekh daa'uud culusow xafidahu allahu tacaala iyo mashaa'ikh kaloo waaweyn caawa hadda waxaan joognaa dhafarkii alxamdulilah waxaan ku dhafraynaa tawxiidkii sheekha wuxuu yahay iskaga sheekaymayno ghaniyun can tacriif waay sheekha wuxuu ahaa sheekh caalim ah saalix ah wuxuu ka mid ahaa raggii ka baxay sheekhaynii weynaa sheekh cali maye ilaahay marka barakadiisa iyo nafaxaadkiisa iyo khayrkiisa hana siiyo dhafarka ayaa socon doona ilaa iyo salaada subax waxaana bacda salaad bilaaban doona tasbiix iyadoo ay raaci doonaan muxaadarooyin dhowr ah oo ay soo jeedin doonaan qaar ka mid ah culimada jameecada xuseen axmed muqdishaawi hoyga diinta TV muqdisho
الله